السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان ودي سلام أصحابتك كحينك تيفي فضلا داودي هدادك عصبت الشانل كفضلا سبسكرايب صار وسيشر قرا أصحابتها سيكون الداودان ورك حيساي حقيقة إن هلك السوق لنو فولا يا قرشين يسافر وكادر ربو كينيا أحمد مدوى فريق كرولو الدري أحمد كراش مدحونا جمهورية سومالان موسى بيحي عبدي أيا دنبال تعصية ودري الشعب كي مدحدا كينيا حركة الشباب يا شيخة المسؤولية دي قرحية حركة عيليدو وركرس بحي دورشدا كسعودة قربها الري داوديان انتاس وقضبضا وركي وحسابضا وديار قرب قضبضا الصولة ما يستيران هقاقس كسو الله بشوين ايساسا هرداع وركي كم مقليسين رئيس الوزراء حكومة داحل قارسين الصومالية محمد حسين روبلي ايا سافر كتاقي دالك كينيا كدي مركو تعسي كبحيي قاريدا مدحويني هوريا كينيا كباكي روبلا ايا يساقو صاحب دولها مدحدا دالك كينيا انتانو دعين سفهواغا يدمع سياسة دي كينيا doonayso badda Soomaaliya Roble ayaa laga yaabaa in maalmaha inagu soo aadan uu Nairobi tago isagoo la kulmi doona madaxda dalka Kenya ee uu ka mid yahay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo madaxda kale dalka Maxamed Xuseen Roble ra'iisul wasaaraha Soomaaliya isagoo ka soo horjeeda siyaasadda madaxweynaha madaxweynaha dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagoo Roble sheegay inuu soo celin doono wadajirka iyo daris wanaagii Kenya ka hor markii xukuumadda Farmaajo ila qaadka iyo xiriirka u goysay Kenya markii ay Kenya ku dhawaaqday in ay badda Soomaaliya ee u dhaxaysa labada dal ay leedahay Kenya ayaa damac wali kaga jira deegaanada iyo dhulka Soomaaliyeed Maxamed Xuseen Roble ayaa isagu shaaciyay qorshihiisa siyaasadeed ee uu Kenya u tagayo waxa uu sheegay in Kenya tahay dalka u soo xiga marka la eego xagga jaarnimada Soomaaliya waxa uu yiri ra'iisul wasaare Roble eegan mayno dhabaha qaldan ee xukuumadda Farmaajo ee aan ka tirsanahay sameynayso dooni maayo in Kenya colaad naga dhaxay marnaba dhicmayso dacdayaan marka la dhicin ayuu yiri ra'iisul wasaare Roble mar uu ka hadlayay khilaafka cakiran ee ka dhaxeeya labada wadan isagoo hadalkiisa sii wata ra'iisul wasaare Roble wuxuu Kenya waa dal walaalahaya waan jecelahay shacabka dalka Kenya iyo madaxdeeda anoo ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxaan codsanayaa oo bulshada Soomaaliyeed iyo bulshada reer Kenya ogeysiinaya in cadaawadi kala wadin waxa horumar iyo barwaaqo lagu gaaraa markay dawladaha taararka dantooda ay ka shaqeynayaan waxa tusaale dhow inooga filan wadamada reer galbeedka ee qaaradda madow ka sii jeeda horumar ku gaareen waa wadatashi ay tashadeen inta ay meel isugu yimaadeen danahooda ka shaqeeyeen waan ogahay dalna dalkuma xirna ee waa daris wanaag iyo nabad ay kala nabad galeen waxa sida yiri ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble maruu ka hadlayay safar uu ku tagay rabo Kenya madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madoobe Islaan ayaa ku dhawaaqay inuu ka xun yahay qaraxa xooggan ee ka dhacay xalay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya Axmed Madoobe ayaa sharaxay sida uu la dareen yahay bulshada Soomaaliyeed ee masiibadu xalay ku habsatay waxaanu sheegay inuu kala shaqeyn doono dowladda habkii lagu soo qaban lahaa dadkii falkan geystay waxaanu dowladda dhexe ugu baaqay inay ka daba tagto dadka dhiigga dadka Soomaaliyeed xalaashtay dhanka kale madaxweyne Madoobe waxa uu inta raaciyay in bulshada Soomaaliyeed ay ka hortagto dhibaato kasta oo naftooda lagu waxyeeleynayo waxaanu sheegay in aad uga xun yihiin isaga iyo xukuumaddiisu qaraxa xalay ka dhacay Muqdisho weyne Axmed Madoobe waxa uu fariin waana iyo wax sheeg daarin raaciyay qoraalkan kooban ee ku soo qoray qaybtiisa Twitter-ka waxaanu fariin u diray madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Dr. Ahmed Karash waxaanu yiri marka maamulka awoodda leh ee ka jira geeyada maamul goboleedyada in marka madaxweynuhu oo buxo safar ama dana kale oo siyaasadeed lama hanbaro horta hubsada halka weer ka dhigaysaan waxaan dhalishan u dirayaa saaxiibkay Ahmed Karash waxaan tilmaanaya tusaale u hayaa saaxiibkay Ahmed Karash marka maamul yahay lama hanbaro Saciid Ismaaciil madaciin halkiisi waa uu talinaya mana xanuunsanayo ee waa caafimaad qaba marka madaxweyne ka noqdo dowladda federaalka ayaa warka ka shaacin lahayd imikana madaxweyne ku xigeen ayaa tahay Ahmed Karash oo xilkaaga kalsooni ku qaab waxa sida yiri Axmed Madoobe Islaan madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe iyo Saciid Dani ayaa saaxiibo dhow ah sanadihii u dambeeyay dadka siyaasadda faaqida waxay leeyihiin halka ugu helinaya Saciid Dani waa saaxiibo ishuwan ayay yiraahdeen dadka siyaasadda faaqida aan ku sii soconay xarakada al-shabaab ee ka dagaalanta gudaha dalka ayaa sheegatay weerarkii xalay lagu qaaday xeebta Lido bacda afradii sida ila ku dhawaa xeebta Lido noo shaaciyeen
waxaa lagu beegsanayay weerarkan taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya taliye xijaar oo beesha dhulbahante ka soo jeeda oo ku shirasay halkaasi. hotel dhow waa xeebta Liido ayaa la shaaciyay in la doonayay in lagu kharajiyo taliye xijaar. kooxda al-shabaab ayaa waray soo saartay bacda suxuurta kadib waxay shaacisay inay ku lug lahaayeen weerarkaasi, waxaana weerarka ku dhintay dad shacab iyo ciidanka ilaalada u ahaa taliye xijaar, waxaana la sheegay inuu ku dhintay xoghayntii gaarka ahayd ee taliye xijaar, balse lama yaqaano inta ay leegtahay dhimashada iyo dhaawaca halkaas yaala. laakiin sida la xaqiijiyay waxa ku baabaday hanti aad u badan oo ay lahaayeen bulshada shacabka masaakiinta ee reer Muqdisho. madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa dhambaal tacsiya u diray madaxweynaha Kenya iyo shacabka dalka Kenya. uu ka baxay madaxweynihii hore Kenya Kibaki. madaxweyne Biixi ayaa ku sifeeyay shakhsi wanaag badnaa intuu xilka hayay iyo intii ka dambeysay. madaxweyne Biixi oo bartiisa Twitter-ka ku daabacay warkan ayaa shaaciyay inuu murugada iyo tiraanyada la qaybsanayo shacabka iyo madaxda dalka Kenya, isagoo madaxweyne Biixi aad uga xun geerida iyo murugada soo waajaday Kenya. waxaan la qaybsanayaa walaalahayga Kenya murugada ballaaran ee soo waajaday, waxaana sidaa yiri madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. ugu dambeyntii daawadayaal qoraal ka soo baxay guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ayaa qoraal ay soo saareen ku cadeeyay in doorashooyinka ka bilowday magaalooyinka Garbahare iyo Ceelwaaq ay yihiin kuwa hareeraysan heshiisyada iyo habraacyada doorashooyinka. guddiga ayaa sharci darro ku tilmaamay doorashooyinkaasi labada magaalo iyadoo la eegayo heshiisyada siyaasadeed ay wada gaareen madasha wadatashiga qaran 1 Oktoobar 2020 sida lagu yiri war-saxaafadeed ka soo baxay guddiga. qoraalkan ka soo baxay guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ayaa waxa ka horeeyay qoraal ka soo baxay madaxweyne Farmaajo oo sharci darro ku sheegay doorashooyinka ka bilowday Garbahare iyo Ceelwaaq. war-saxaafadeed guddiga xalinta khilaafaadka waxa uu dhisan yahay heshiis siyaasadeed oo ay gaareen madasha wadatashiga qaran 1 Oktoobar 2020, waxaana waajibaadkiisa shaqo ugu muhiimsan inuu hubiyo in kursi kasta oo la doortay loo qabtay hanaan waafaqsan heshiiska 17 Sebtembar 2020 iyo habraacyada doorashooyinka 2021-2022. haddaba guddiga xalinta khilaafaadka wuxuu cadeynayaa in doorashooyinka ka bilowday magaalooyinka Garbahare iyo Ceelwaaq ay yihiin kuwa hareeraysan heshiisyada iyo habraacyada doorashada ka socota magaalada Garbahare waxa aysan haysan sharciyada maamulka Jubbaland iyo doorkii guddiga Siid oo meesha ka maqan, halka doorashada Ceelwaaq ay khilaafsan tahay qodob asaasi ah oo ku saabsan astaynta deegaan doorashooyinka sida ku cad sharciga jihaynta doorashooyinka dadban ee ay ansixiyeen labada aqal. guddiga xalinta khilaafaadka waxa uu soo jeedinayaa madasha wadatashiga qaran inay xal waara u hesho doorashooyinka isbarbaryaacsan ee haatan ka socda magaalooyinka Garbahare iyo Ceelwaaq, taasoo u baahan wada hadal, isqancin iyo tanaasul siyaasadeed. hagaag daawadayaal, intaas ayaan ku soo afmeeraynaa wararka Hagaag TV. fadlan daawada haddaad ku cusubta channelka fadlan subscribe saar oo la wadaaga asxaabtaada si ay kula daawadaan wararka xaqiiqada ee aan halka soo galino. waad ku mahadsantihiin daawashadiina.